qoraal ka soo baxay Bangiga Dhexe Soomaaliya ayaa waxaa lagu amray shirkadaha sida gaarka loo leeyahay inay xayiraan dhammaanba akoonnada shirkadda Forex ku leedahay shirkadahaasi. qoraalkan oo ay ku saxeexan tahay gudoomiye ku-xigeenka Bangiga Dhexe Maryama Cabdilaahi Yuusuf ayaa lagu amray in shirkadahaasi gaarka loo leeyahay fuliyaan amarkaas, sidoo kalena ay soo gudbiyaan cadadka lacagta ee ku jira akoonnada Forex. Guddiga Dhexe Maamulka Bangiga ayaa lagu sheegay inay 28 Oktoobar 2019 kulan kula yeesheen arrintaasi shirkadaha, isla markaasna la go'aamiyay in go'aanka bangiyada gaarka loo leeyahay xayiraan akoonnada Forex. Amarkan ka soo baxay Bangiga Dhexe Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay ay taagnayd dood ka dhalatay ka ganacsiga Forex, iyadoo culimada qaarkoodna ay isku khilaafsan yihiin saxaanshaha ganacsiga Forex. Waa Cawil Cabdiraxiin Kayse, Cawil Burcaawi, Voice News, magaalada Hargeysa.